gobolka Gado ciidamadii dawladdu ay ku daabuleysay Garbaharey Luuq iyo Doolow waxa la soo warinayaa in Jubbaland dagaal culus ay ku qaadeen gobolka Gado oo ciidamadii ugu badnaa ee dawladdu ay ku sugan yihiin caawa dhowr magaalo oo kamid ah ay ka jirto xaalad quusa waxaan ku hayaa car iyo wir ka taagan gobolkaasi iyo sidoo kale cidda iska leh mas'uuliyadda dagaalkaasi sidoo kale gabadhan waxa dhalay hogaamiye al-shabaab tarsanaa sidoo kalena maxaakiimta islaamiga ah qaybta ka ahaa Xasan Daahir Aweys oo ay garnaqsatay muuqaal iska ayaan ku hayaa sidoo kale xaaladda Xasan Daahir Aweys waa laga deerinayaa waxa la soo sheegayaa in xabsiga uu ku xiran yahay ee magaalada Muqdisho uu ku xanuunsanayo muddooyinkii ugu dambeeyay waxa la sheegay in Xasan Daahir Aweys xaalad caafimaad ay la soo daristay waxaan ku hayaa oo mowduuceena si weyn aan ugu eegi doona hadii alla weyna laga helo xaaladda dhabta ay ku sugan yahay hogaamiyihii kooxda markaasi la yiraahdo maxaakiimta islaamiga ah marka tirsanaa sidoo kale waxaan ku hayaa imaaraadka carabta dhibaato baan ayuu ku hayaa Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa maqaal dheer oo qoray oo markaasi uu ka qoray bariga Afrika saameynta uu ku leeyahay imaaraadka carabta ayaan ku hayaa imaaraadka dad badan waxay ku eedayaa inuu yahay dal cadaw sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya oo halkii xildhibaanba uu qaato 5,500 oo dollarka Mareykanka waxay diideen in askarta qaranka ee xoogga dalka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidanka in mushaar kordhin ay u sameeyaan oo cala askari uu qaato 500 oo dollar waa ay diideen waxay yiraahdeen 5,000 iyo 5,100 inaga ayaa qabowga ku qaadanayno adinkuna furinta dagaal ku qaata 200 oo dollar waliba 190 dollar maadaama ay ka go'ayso 10 dollar oo canshuur ah waxaan ku hayaa xildhibaanada maanta sida adag baarlamaanka ugu shiray iyo sidoo kale talaabooyinka ay qaadeen caawa sidoo kale Sheekh Shariif ayaa isaguna gurigiisa waxa ka taagan xaalad kale oo quusa mowduucyadaas oo idil ayaan eegaynaa marka hore soo dhaw waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like saarto like waxay naga saacidaysaa in muuqaaladeenu ay meel fog gaaraan sidoo kale rukumo bartayda YouTube oo subscribe na soo dheh waa mahadsantahay sharaf iyo karaamo aad baan ku salaamayaa daawada hagaag gobolka Gado waxa laga soo warinayaa in xaalad culus ay ka taagan tahay kadib markii maanta dawladdu ay ku daabushay ciidamo kale oo hor leh oo gobolkaasi ay geysay isla markaana qayb ka noqonayo ciidamada dawladda ee halkaasi ku sugan ee la doonayo in doorasho dawladdu ay halkaasi kaga hirgeliso Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaaliga waxa u dhaxeeyay khilaaf culus hogaamiyaha Jubbaland ee la doortay mar kale November sanadii inay wadaaratay 2024 Axmed Madoobe ay dawladdu diidan tahay doorasho ay qorsheynaysaa inay ku qabato caasimadda gobolka Gado ee Garbaharey waxaan halkaas la geeyay ciidamo aad u badan waxa la soo sheegayaa in Doolow Luuq Balad Xaawo iyo sidoo kale Garbaharey ay ka taagan tahay xaalad taagtaaga oo ciidamada labada dhinac ay halkaas kor fadhiyaan suuragalna ay tahay inuu dagaalka qarxo gobolka Gado wuxuu ka mid yahay meelaha dhibanaha u noqday nidaamka dawladeed ee dalka hadii la dhaho tii dawladii Xasan Sheekh sanadii 2012 ilaa 2016 iyo tii farmaajo 2017 ilaa 2022 iyo tan hadda Xasan Sheekh 2022 ilaa 2026 gobolkan sidiisaba wuxuu dhibana u yahay nidaam kasta oo dawladeed ha noqdo Xasan noqdo farmaajo magaalooyinkaasi garoomada diyaaradaha ayaa la xiraa ciidamo ayaa lagu daabulaa maciishada ayaa lagu qaaliyeeyaa wax walba oo dhibaato ku ah shacab Soomaaliyeed ayaa magaalooyinkaasi ka hirgala haddana doorasho aan la isla ogoleen wax Madoobe uu diidan yahay dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland qaarkood ay diidan yihiin laakiin qolo yar oo fara ku tirsan oo dawladdu gadaal ay ka riixayso ay doonayaan la rabaa in laga qabto markaasi gobolka Gado ee Soomaaliya lama oga doorashadaasi qaabka ay u dhici doonto iyo sidoo kale hadii beesha caalamku ay taageeri doonto Axmed Madoobe waa hogaamiye sanad ku dhawaad dooran lama caleema saarin wali sidoo kale dhaqaalihii dawladda maamulkaasi uu ka heli jiray kama helo xaalad nololeed ayuu isagu laftirkiisa wajahayaa oo dhaqaale ciidamadiisusa waxay ka mid yihiin kuwa sida baan ula dagaalamo kooxaha argagixiso dhinaca kale daawadayaal hadaynu eegnana xanuunka Xasan Daahir Aweys ayaa la soo warinayaa in uu ka sii daray xaalad nololeedna uu ku wajahayo Muqdisho laba toddobaad ka hor waxa soo baxay war sheegaya in Xasan Daahir Aweys oo ka mid ahaa mar ragga ugu sarsareeya kooxda shabaab sidoo kalena hore u soo noqday gudoomiyihii midowgii maxaakiimta islaamiga ahaa sanadii 2006 ayaa la soo warinayaa in xaalad culus oo caafimaad uu ku wajahayo magaalada Muqdisho warkaasi kolkii uu soo baxay dadku ay qaadaan dhigeen siyaabo kala duwan ayay uga hadleen laakiin waxa soo hadashay gabadha uu dhalay Sheekh Xasan Daahir Aweys iyada oo markaasi gabay qiiro la tirisay sidoo kalena tilmaantay in aabaheed aysan garanayn dadka Soomaaliyeed waxa uu gudo iyo waxa uu galo sidoo kale waxay intaas ku dartay in geesiga iyada dhalay sida ay hadalka u dhigtay uu garab ka waayay dadkii waxay ka hadlaysaa dareen ahaan Xasan waa kuma inta badan Soomaalidu waxay ogyihiin Xasan inuu ahaa nin liiska argagixisada uu ku daro Mareykanka dawladdu xidho dhibaatooyin la kulmo laakiin gabadhan waxay ka sheekeynaysaa shakhsiyadu uu ku sifaysan yahay waxa uu yahay waxaan ka codsanayaa in muuqaalkeeda meel fog gaarsiiso
like-na asaarto channel-kana subscribe soo tiraahdo bal ila daawo gabadha uu dhalay Xasan Daahir Aweys xaasidkaaga ilaahayow aabo hoosta cagteeda hoosteeda ilaahow dhig ما فهمت إلهي كر إذن كجواد خالد وريا إلهي عز وجل الله لما ناقشوا قرآن كيس قلبي كيس كيرا وريا مركز حامل اسمي إنه أنتم ملا ما إيه صدقني الكباب لي وحسكوا ذا راعن واجي أو إثيوبيان كلا وذي كون يلحدي سوى ذا قالوا إنه يركالي إثيوبيان كأسلوا ذا بحنا ساسي كوه شيئين مركز دت كاني كسر ضرينا بري وكي هاي هل كسو كيستاجو ويروح سميني سوا خالد يا يلاي سوماليا هل دقا حكم قشين كل جين هل دقا حكم مشخ وقف ورا يستي من كجرا أبدا أو حتى سيب تشانس أو كهلا never صدق إيتو مسون الحرية مركزو إلهي عز وجل وكر إذن كجواد قاد وريا قف البني إلهي عز وجل أو حفظه الله حاجك إلى الله وحاشا لله سوماليا حال حسك إي حدا يحنونتي أنا حودث دير قليا حمان إي حاسب أدي ذي حاجك إلى الله ما حسبتنا مسوي لي وحاودن حالي رؤبان حفظه الله حاشا لله حاجك إلى الله يا قيمه سمت قانان واحتركي سمت قانان دني مدي سمت قانان دينتي سمت قانان كل جين أذنك كل جين ثمنا قليلا أيقوا بالجوتين والله بالله دتك كلي وقيمي سيقانا أنا هذا رنت شيء جاي نورمال أنا قبيل كم الله سياسة نور كذا بس كذا دتك قبيل يقانو قبيل ككلي قيمه سيقانو ودارات وإذن سلامي ديو أنستان قبي دير أيا اللي كتيريه نين مريحان وكتيريه وحكوسو هرواج وسياد برانولا أبهي وانينك السوهوي قبنيمو يمحنكوشة يوضنيمو يعز يشرف مركو إثيوبيا كبحي 1977 كوريا بلد شرف ونسيد سياد بري كذا بها كحرو لكن وانينك كلية مركو سياد بروقي أو قطبينايو وقديمو سياد برولي جير دونوري وحسن ظاهر ولا يخرب دونوري don't talk to him كذا بها كحرها ضرب سياسة الله السكوت زواري برا السكوت وحكوسو هري مركي ثمنا قليلا لجوجتي دتكي سجدان نينكي كلو مدحوينها نقد فرماجو وكي جوهري حرمة السيء وحن كلها محنكوشة يري سهر بتوتو هذا هذا دتكي دت وجوحي نجا مسي أسيقو مقع حرن أو بلاي أنتي لقول وحلا شقي الشباب علمه وصومالي بودمي حكوا علمه كودمي بنتين إبارة بقدين وليس ياليس أنتي مل سو استاجي ملقود هاي وحس ما سمعه شانس ملسي وقالوا قفك الليستا human rights على الدون كلاجي قنا إنا محكمة لسوء استاجي أو لقير هذا وحن ما سمعه وحنا ما سمعني كل جيم حسلوا الملسي وحالي قميص متخانن كل جينا بينا وتقن بكذابين ودتين أو بذكتين دتك تدقوا حاجة وهنين دين هو دتك يسيد دولمين ورياضة يا وهنين جيسي وقرب واعي مركزا مانتني إذن كف كلا أذيك وحول بقى كوسة ميسين حاسدك إلهي وأبو هوست عكتي هوست إلهه لك ما فهمت إلهي كر إذن كجواد خالد وريا إلهي عز وجل الله لما ناقشوا قرآن كيس قلبي كيس كيرا وريا مركز حامل اسمي إنه أنتم ملا ما إيه صدقني الكباب لي وحسكوا ذا راعن واجي أو إثيوبيان كلا وذي كون يلحدي سوى ذا قالوا إنه يركالي إثيوبيان كأسلوا ذا بحنا ساسي كوه شيئين مركز دت كاني كسر ضرينا بري وكي هاي هل كسو كيستاجو ويروح سميني سوا خالد يا يلاي سوماليا هل دقا حكم قشين كل جين هل دقا حكم مشخ وقف ورا يستي من كجرا أبدا أو حتى سيب تشانس أو كهلا never صدق إيتو مسون الحرية مركزو إلهي عز وجل وكر إذن كجواد قاد وريا قف البني إلهي عز وجل أو حفظه الله حاجك إلى الله وحاشا لله ugu dambeyn daawadayaal dawladda federaaliga ee Soomaaliya si gaar ah golaha baarlamaanka maanta shir ay ku yeesheen Muqdisho waxay diideen in loo kordhiyo mushaaraadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee furimaha dagaal ku sugan iyo kuwa kale ee booliis iyo nabad sugid leh cala askari waxa qorsho u ahaa in la gaarsiiyo mushaar dhan 500 oo doolarka Mareykanka hadda waxay qaataan $190 ugu dambeyn waxa la soo jeediyay in 200 loogu daro waa ay diideen xildhibaanada waxa la yiri 5500 maadaama aad qaataan min 500 halkii xildhibaan laga jaro oo 5000 mushaarkiina ha ahaado waa ay diideen iyagu oo yiri waxba nagala ma jirayo ciidamadana ha qaataan $190 ugu askariga caruur leh kira ku jira koronto iyo biyo laga rabo maciishada Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho aad ogtiin halka ay marayso in $190 aysan ku filnayn oo sanad difaaci karin qaranka askarigu dhidid badan ayaa ka baxaya xildhibaanku sadheeyla ayuu qabow ku cunaa sidoo kale baarlamaanku ma xaadiran mararka qaar oo kooram la'aan ayuu u baaqdaa oo waxayba diidan yihiin shaqada yar qabta wiigii 2 maalin kaliya ayay shaqeeyaan sanadkii oo 360 maalin ahna waxay shaqeeyaan wax ka yar 60 maalmood waxayna diidan yihiin in ay sidaasi
5,000 iyo 5,100 ay askarta gaarsiiyaan 500 oo kaliya waa qaranjabka Soomaaliya qayb kamida sidoo kale waa waxa aad looga xumaado waxa maanta ay ku kaceen baarlamaanka lama soo oga askarta Soomaaliyeed goorta ay heli doonaan cadaalad aragtidaada waa muhiim faalada adiga ayaa xor ah sida aad u aragto askarta iyo xildhibaanada farqiga u dhaxeeya yaa muhiim u ah dalkan qaybta hoose ee faalada nagu reeb muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dheh sharaf iyo karaamo habeen wanaagsan